dhagartu waxay ahayd shaqadeyda. sidaasi waxaa yiri ninkan. barnaamijkan waxaan ugu magac daray qalbi ma leedahay. haddaba waxaan barnaamijkan ku soo qaadanaynaa ninka lagu magacaabi jiray Yuri Alexandrovich Bezmenov oo markii dambe la baxay magaca beenta ah Thomas David si uu isku qariyo. ninkan ayaa hay-addii xagga sirdoonka ee midowgii Soviet KGB u qaabilsanaa arrimaha dacaayadaha, wuxuuna markii dambe ka baxsaday dalkaasi Ruushka isagoo u shaqayn jiray Novosti Press oo ahayd qayb ka mid ahayd KGB-gii midowgii Soviet ama u qaabilsanayd arrimaha warbaahinta. Yuri Bezmenov wuxuu uu galay macad lagu barto luuqadaha, waxaana macadkaasi gacanta ku hayay hay-addii sirdoonka ee KGB. macadkaasina wuxuu ku yeelay dalka Ruushka gudihii. February 1970 Bezmenov wuxuu ka baxsaday midowgii Soviet wuxuuna ka degay waddanka Gariiga isagoo xiriir hoose la sameeyay safaaraddii Mareykanka ee Gariiga, waxayna sirdoonkii Mareykanka la yeesheen waraysi aad u xoogan. kadibna wuxuu magangeliyo siyaasadeed ka helay dalka Canada, gaar ahaan ra'iisul wasaarihii dalkaasi Pierre Elliott Trudeau. haddaba yaanan warka idinka badin ku soo dhawaada cashirkii uu bixiyey Yuri Bezmenov oo uu ka bixinayay jaamacad ku taala Mareykanka, waana casharka loo yaqaan sida loo burburiyo akhlaaqda shucuubaha iyo dawladaha jira. digniin: haddii daawashada barnaamijkan aad xanuun ka dareento, ogow inaad ka fogaato qabiilka iyo qabyaaladda waddanka lagu burburinayo, waana intaas oo keliya daawada saxda ah ee aad ku caafimaadi karto. tijaabada qaribaadda waxay soo bilaabatay muddo laga joogo 2500 sano ka hor. qofkii ugu horeeyay bini'aadama ee dejiyey nidaamka lagu burburiyo dawladaha wuxuu ahaa filosofar Shiinees ah, magaciisuna ahaa Sun Tzu. muddo laga joogo 2500 sano ka hor wuxuu ahaa la taliye. wuxuu talooyin siin jiray imbaradoriyadihii Shiinaha ka talin jiray. wuxuu yiri markii aad u fikiray, haddii aad gasho arrimaha siyaasadda dibadda, dagaalada dunida ka dhaca, waxa ugu badan dagaalada dunida ka dhaca ee cagsiga ah ama halka dhinac ah iyo kuwa kaleba, waad ogtihiin dagaalka uu ku qotomo siyaasadda dawladda. sax, haddii aad doonayso inay guulaysato fulinta siyaasaddaada oo aad adiga dagaalkii bilowdo, waxaad qaaday dariiq ahbalnimo ah. fanka ugu sareeya ee sharciga dagaalka waa in aadan dagaal qaadin gebi ahaanba, laakiin aad qaribtaa wax waliba oo qiimo ka leh waddanka cadowgaaga ah, ilaa laga gaaro waqti aad weeciso aragtida cadowgaaga dhabta ah, heer aad gaarsiiso cadowgaaga inuusanba arag cadowtinimada adiga iyo nidaamkaaga. u adeegso nidaamkaaga iyo ilbaxnimadaada iyo hammigaaga. fiiri cadowgaaga adigoo u jiheynaya dhan kale. haddii aan loo baahnayn, ugu yaraan waxay noqon howlgal. midabka casaanka ah ayaa ka wanaagsan geerida. taasi waa hadafka ugu dambeeya. nidaamka ugu wanaagsan ee qaribaadda dawladaha waa adigoo cadowgaaga hal rasaas ah ku gamin. waaba haddii qaribaadda lagu guulaysto, waana tan qaribaadda asalkeeda. waa maxay qaribaadda? waxay ka kooban tahay 4 xilli oo isku jaango'an. waxaynu ka bilaabi halkan una socon nidaamkaasi, waana halka ay wax ka bilaabanayaan. nidaamka ugu horeeya qaribaadda waa nidaamka loo garanayo aas-aaska burburinta akhlaaqda dadyowga. macnaha oo qayaxan waa kan: waxay qaadataa 15 ilaa 20 sano si aad u burburiso shucuub dhan. sabab 15 ama 20 sano. tani waa waqtiga ku filan in aad wax barto hal fac ama hal jiil oo dhan oo arday ah ama caruur ah. waa hal jiil oo dhan. waa marxaladda nolosha shakhsiga ah oo aad qof dhan oo bini'aadam ah aad isagaasi wax ku bari karto, nidaamkan ku bedeli karto, adigoo ku shubaya fikradahaaga gaarka ku ah. kama badna kamana yara.
caadiyan waxay qaadataa 15 ilaa 20 sano maxaa ka mid ah waxa ka mid ah in aad u weeciso in aad jihayso oo aad dhex gasho iyaga nuuca propagandada xiriirka tooska ah wax dhib ah ma lahan waan idin sharxi doonaa goordhow waxaa jira wadooyin loogu qeexayo dadka bulshada muuqaal ahaan tusaale diinta nidaamka waxbarashada nolosha bulshada dhanka maamulka nidaamka sharciga iyo awoodda militariga dabcan iyo shaqada iyo shaqaalaha xiriirkooda dhaqaalaha hagaag waa 5 dariiq boosko inagu yar ma awoodo inaan halkan ku soo wada bandhigo mararka qaar markaan qeexayo nidaamka ardayda su'aal ayay i weydiiyaan ma hubtaa in midowgii Soviet uu sidaan wax u qiyaamayn jiray muhiim ma ahan waa nidaamka burburinta waxaan ka hadlayo waa mid la mid ah martial art nidaamka Japan waxa laga yaabaa in qaarkiin ay xasuustaan nidaamka difaaca haddii cadowga ka awood badan yahay adiga ka culus yahay aad ayay u xanuun badan tahay in aad weerarka kugu soo jihaysan iska difaacdo haddii qofka culus uu feer wajiga kala soo aado waa mid aad u adag inaad ka hortagto aad iska difaacdo feerkiisa awood badan dalalka Japan iyo Shiinaha nidaamka judo ayaa ina baraya nidaamka difaaca ugu horeyn ka fogow feerka kadibna qabo gacanta kadibna u raac jihada uu u socdo isaga waa dhanka uu feerka u socday markii horeba sax ilaa cadowgaaga uu ka burburiyo gidaarka waad fahanteen haddaba maxaa halkan ka dhacaya waddanka ay diiradda saaran tahay sida dhacdana uu qalad sameeyo dadkana ku dhaqmayaan dimuqraadiyadda xorta ah waxaa jira xarakaad kala duwan oo bulshada ku dhex jira caadiyan bulsho waliba oo dunida ka jirta waxaa ku jira kuwa iyaga ka soo horjeeda laga yaabay dambiilayaal ah ama ku khilaafsan ideolojiyad ahaan siyaasadda dawladda jirta hagaag ugu dambayntii waxaa jira kooxo yar oo ka socda dawlado ajnabi ah oo qaribaadda loo shaqaaleeyay hagaag haddaba dhammaan xarakaadkaasi jira waxaa loo jiheynayaa hal dhinac sax tani waa waqtigii aad qaban lahayd dhaqdhaqaaqa una jihayn lahayd ilaa aad soo jiidato si xoog ah dhammaan bulshada heer dhibaatada burburka ah hagaag taasina waa nidaamka dhabta ah ee martial art ma istaajinayno cadowgeena waan u ogolaan inay socdaan oo ku caawin socodka welibana jihada inaga aan doonayna inaan u kaxayno okay haddaba heerarka burburinta akhlaaqda waa mid iska qayaxan midaasi oo ku wajahan shucuubta iyo dalalkaba kuwaasi oo ku kala socda jihooyin kala duwan oo aasaaska akhlaaqda iyo mabaadiida si aad wax ugu qabato xarakaadkaasi iyo sidaad ugu danaysan lahayd waa waajib aas u ah burburinta akhlaaqda shucuubta waxaan haysanaa diinta waxaan haysanaa waxbarashada waxaan kaloo haysanaa nolosha bulshada nidaamka awoodda dawladda xiriirka shaqaalaha waxaan haysanaa oo kale nidaamka iyo sharciga 1 2 3 4 5 6 okay kuwani waa jihooyinka loo maro burburinta akhlaaqda shucuubaha waa maxay macnaha dhabta ah midda diinta aan eegno burburi ku maadayso ugu bedel kooxa caqiidooyinkooda kala duwan yihiin kuwaasi oo bulshada soo jiidan kara ama kuwa iska dhayeelsada diinta wax dhib ah ma laha runtii haddiiba iyaga sida hoose ay ogol yihiin caqiidada diinta oo ay si daran ugu dhagan yihiin waa in aad ugu fogaysaa hadafkooda sare ee xagga diinta ah si aad dadka ay ula sii xiriiraan abuuraha sare waa ka ujeedka sidaas darteed ku bedel ururada diimaha ee ay dadka ogol yihiin ee ixtiraam xagga diinta ah ka leh dadka dhexdii ku bedel ururo been abuur ah oo xagga diinta ah waa inaad ka jeedisaa dadka iimaanka dhabta ah ugu bedel diimo kala duwan aanan jirin waxbarashada ka fogay iyaga inay bartaan wax maskaxdooda kor u qaadi kara oo dhab ah oo muuqda ugu bedel xisaabta fiisikiska afafka qalaad chemistryga bar iyaga taariikhda dagaalada dhexdooda ah cuntooyinka dalka
dhaqaalaha guriga iyo sida galmada loo sameeyo wax waliba oo aad u fogeyn kara caqliyadooda hagaag nolosha bulshada ugu bedel waxyaabo aas-aasiga ah ururo iyo hay-ado dhaqan rog ah oo la been abuuray waa inaad ka saartaa gabi ahaanba shacabka ka fogee iyaga mas'uuliyadda middaasi oo keenaysa inay isku xirto shakhsiyaad iyo kooxo kala duwan oo waddaniyiin ah ugu bedel shakhsiyaad aanan jirin oo iyaga dhan siduu doono u xukumi kara bedel nolosha shucuubta iyo xiriirka ka dhexeeya labada dariska ah waa inaad abuurtaa shaqaale dhanka bulshada ah si xeer ah kuwaasi oo ka amar qaata waa kee ma bulshada maya madax aan la dooran daawade ninkan wuxuu yidhi bureaucracy haddaba macnaha ereygan waa madax dawladda ka mid ah oo aan la dooran ama xafiisyada dawladda ka mid ah oo sharciyadooda iyo maamulkooda uu adag yahay maxaa yeelay maamulkooda uu aad u tiro badan haddaba aan ku sii soconno ujeedka ugu weyne shaqaalaha bulshada loo doonayo ma ahan qoyskaaga ma ahan xiriirka ka dhexeeya bulshada inteeda kale ujeedka ugu weyn waa in dhaqaale laga helaa dawladda okay waa arrin aad ugu fog dabiiciga awoodda maamulka okay sida caadiga ah dhismaha dawladda sida dhaqanka ah waxa wax doorta shacabka oo dhan ama odayaal laga soo xulay bulshada inteeda kale ama dad si aan sharci ahayn iyaga ismagacaabay oo soo muuqda dadka qaar waxaa ku jira qof cid dooratay aanan jirinba weligood dadkana waa ay saamayn og yihiin dadka badankii ma arkaan laakiin waa kuwa jira kuwaasi waxaa ka mid ah warbaahinta yaa doortay iyaga sidee ayay ku yeesheen awood aad u tiro badan mar hore ayay awood u adeegsadeen maskaxdaada waa ay dhici karaan maskaxdaada horta yaa doortay iyaga warbaahinta ah sidee ayay wax ugu sheegayaan wixii xun iyo wixii wanaagsanba ee ku aadan madaxda la doortay iyo maamulkiisaba horta maxay yihiin iyaga adduunyadu waa taariikh wixii tegay way xustaa waxa dhacana waa ay qortaa waxa dhici doonana waa ay sugtaa